halkii ayay ku dambeysay hal dhibic 9 trilyan doolarkii uu rabay madaxweyne Biden inuu dhaqaalaha kor ugu soo kiciyo shacabkana uu siiyo lacag. qaybta sharafta la meel walba joogtaan waa salaamantiin ku soo dhawaada channelkayga waa Maxamed Faarax dad ku cusub tahay channelkayga waxaan dareemaynaa ku cusub tahay fadlan subscribe garee comment-na ka baxso waxaan idin soo bandhigi doonaa kuna xirnaada page-kayga waxaan soo bandhigi doonaa barnaamijyaal aad iyo aad u fara badan oo dhammaantiin idin wada qanciya haato dhaqaalaha haato siyaasadda haato wax walbo oo caalamka ka dhaco. Okay, aan ku soo laabta topic-gayga ama qorshahan maanta idin wado talaada ah taariikhduna ay tahay bishii labadeeda 2021 xalay oo kooda ahayd taariikhda galinkii dambe ayaa madaxweyne Biden wuxuu casuumay 10 aqalka sare ah 10ku waxay wada ahaayeen ama ka socdeen xisbiga jamhuuriga waxay kooda hadleen in economic relief package loo baahan yahay. madaxweyne Biden wuxuu ku codsaday xisbiga jamhuuriga iyo 10ka senator oo imaadaba in ay fadlan si aysan diidin barnaamijkiisii ahaa 1.9 trilyan doolarka uu dhaqaalaha kor ugu soo kicinay maadaama madaxweyne cusub yahay dhaqaalaha Mareykan aad iyo aad u burburay malaayiin in ka badan 30 milyan oo qof ayaa unemployment qaadato 2 milyan oo qof ayaa bil walba buuxiso in shaqo la'aan ay ku dhacday Mareykan. haddaba si aan taas uga hortagno leeyahay dhaqaalaha u burburin fadlan iyo caawiya san package-kiigan aan rabo inaan keeno aqalka hoose iyo aqalka sare aan u hirgeliyo 10kii aqalka sare ahayd oo Republicaanka ah ayagana waxay soo bandhigeen qorshe kii Biden ka duwan. haddaba waxaa hogaaminaysay 10kaas Susan Collins oo ka soo gasha gobolka Maine, Mitt Romney iyo Robert Portman oo ka soo gala gobolkan jooga ee Ohio iyo 7 kale oo aqalka sare ah. 10kii waxay u sheegeen in madaxweyne Biden aysan ka yeelanin lacagtan 1.9 trilyan doolarka. waxay dhaheen lacagtan way badan tahay annagu hadda xisbiga jamhuuriga naga raalahaw waanu ka diidnay waxaan kaliya ogolnahay 618 bilyan oo dollar in oo third stimulus ah third economic package ah oo kaliya. lacagtan waxay ku tilmaameen in xisbiga jamhuuriga uu ka soo horjeedo lacagtan ay deen ku tahay shacabweynaha Mareykan oo 2 trilyan oo dollar in ka badan 23 trilyan oo dollar lagu leeyahay oo deen ah aysan awoodin in jeelka dambe ee Mareykanka ay bixiyaan. waxay baaran ku dhaheen iska ilo qorshahaaga awratid iska laalaab annaga waxaan ku ogolnahay 618 bilyan oo dollar. haddaba 618 bilyan oo dollar xisbiga jamhuuriga soo bandhigeen waxaa ku jira in qof walba oo Mareykan la siin doono $1 halka qorshaha Biden uu yahay $1,400 qof walba in la siin doono. waxaa kaloo ku jira in unemployment-ga dadka shaqo la'aanta hayso ay siin doonaan $300 ala asbuuci federal PUA ilaa socon doona July halka kan Biden uu socon doono ilaa September $400 ay tahay. waxay diideen xisbiga jamhuuriga dhammaan lacagtii la siin lahaa gobolada oo dhaqaalahooda lagu kobcin lahaa iyo magaalooyinka way diideen. waxay kaloo diideen waxyaalo badan oo mataqaana muhiim u ah dhaqaalaha Mareykan in kor loo soo kiciyo. haddaba madaxweyne Biden ayaa ku tilmaamay xafiiskiisa in wada hadalkii xalay dhacay uu ahaa mid fruitful ah mid ay is afgarteen labada dhinac balse aysan heshiinin wada hadalkana uu dib u furnaan doono. waxay isku dhaheen in labada qoloba ay kala laabtaan mar kale ay isku wada yimaadaan fadhi si ay iskula waafajiyaan barnaamij ku soconayo dhaqaalaha Mareykan shacabweynaha Mareykan ee dhammaan raali ka yihiin. isla shalay galinkii hore Schumer oo ah aqalka sare dimuqraadiga ninka haysto iyo Nancy Pelosi ayaa waxay sheegeen in ay socon doonaan resolution bill ay soo qoran doonaan biilkan oo ah 1.9 trilyan doolarkii uu rabay madaxweyne Biden aqalka hoose ayna keeni doonaan. haddii aqalka hoose keenaan maxaa dhici kara biilka soo qoraan dimuqraadi kaliya ma ansixin karaa biilkan 1.9 trilyan doolarka? su-aasha jawaabteeda waxaa weeye maya. way aqalka sare haddii ansixiyaan xisbiga dimuqraadiga markay keenaan sida la filayana Nancy ayaa ku awood badan iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa ku awood badan aqalka hoose markay ansixiyaan ay ku guuleystaan waxay keenayaan biilka aqalka sare oo Jack Schumer ayaa keenayo. dimuqraadiga 50 aqal sare ayay leeyihiin jamhuurigana 50 aqalka sare ah. sidoo biilkan ku ansaxmo oo loo ku noqdo madaxweyne Biden ku saxiixo waxaa loo baahan yahay in 60 xisbiga jamhuuriga ah 60 aqalka sare ah inay yey dhahaan
micnaheedu tahay inay yes dhahaan biilkan aqbalaan. 40 way diidi karaa laakiin 60 ayaa loo baahan yahay inay yes dhahaan. jamhuuriga konton ayay leeyihiin, dimuqraadiga konton ayuu leeyahay. micnaheeda taas waxaa weeye dimuqraadiga 10 extra ah aqalka sare ah kama heli karaan xisbiga jamhuuriga. haddii u badnaato 2 falaaga ah ama 3 falaaga waa say sheegeen ayay helayaan. Mitch McConnell ma ogolaanayo xisbiga jamhuuriga inuu kala firqamo. sida ogtihiina waa Mr. No alaaba simulaasyaasha hore uu diidayay in dadka la siiyo 2,400 la siiyo. dhowr mar ayuu diiday in 2,000 xataa recurrent bill dadka la siiyo. always xisbiga jamhuuriga midaas ayada ah ma ogola. barnaamijkaas meesha ku dhawaada waa idinla soo socodsiin doonaa, laakiin waxay u eg tahay qorshihii Biden inuu yahay mid ilaa hadda taaka saaran, waxaana hortaagan xisbiga jamhuuriga oo aanan ogoleen. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idiin sheego barnaamijkii dhaqaalaha oo lagu taakulinaya small businesska APP-ga in uu furan yahay. qof walbana oo small business haysta ama 1099 ha qaato ama W2 ha qaato company yahay uu buuxin karo. fadlan haddii aad rabtid barnaamijkaas booqo bankigaaga, waayo Paycheck Protection Program ayuu ku siinayaa, ama waxaad booqataa small lenderka sida PayPal, Cash App iyo dhammaan kuwo kaloo la mid ah financial tech companies-ka. haddii aad tahay 1099 xataa tahay keligaa xataa shaqaale ama truck driver ama Uber ama muqaayad ka shaqaysan employee tahay, schedule-sigaaga lacagta ku taala qaasatan line 31 ayaa muhiim tahay. linekaas ayaa waxaa loo qeybanayaa 12 lagu dhufanayaa 2.5 whatever kuu soo baxdo. ugu dambeyn lacagta waa loan forgiveness, waa deen cafis. xaqna waa u leeyahay qofka mataqaana small businesska, independent contractorka ama self employee-ga ah. halkaas ayaan kusoo gunaanadayaa, halkaas ayaana maanta ku kala baxaynaa. galab wanaagsan meel walbaad joogtaan, waa idin salaamayaa. fadlan channelkayga ku xirnaan hadda ka bacdi waxaa idiin soo bandhigi doonaa barnaamijyo aad iyo aad u fara badan. maalin wanaagsan.